banaanbaxan ay maanta haweenka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo ururka haweenka qaranka Soomaaliya ay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay haweenku kaga soo horjeesteen in haweenka baarlamaanka labada gobol ugu jira ay aad ugu yar yihiin. Haddaba waa kuwaana qaar ka mid ah haweenkii maanta banaanbaxa dhigayay oo ka hadlaya. maanta waxaan u soo banaanbaxnay banaanbax haweenka Shabeellaha labada gobol xuquuqdooda in maanta miiska la saaro xuquuqda Hirshabeelle maanta maxaan ku sheegaa calool xumo meeshaan soo joojiyay duubabkii labadii gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan in laga sii waayo gabdhaha xuquuqda ay ku lahaayeen 30% meel walba inoogu qoran tahay dastuurka inoogu qoran tahay meel walba caalamka laga ogyahay maanta waxaan rabnaa anaga dhib ma wadno dhibaato ma wadno waxaan rabnaa xaqayni in duubabka sidaan rabnay waa ka weynay waxaan rabnaa xaqayni in banaanka noola dhigaan rabnaa maanta sida la sheegay waa la isdhaarinayay maxaa lagu dhaaranaa hooyadii ku dhashay banaanka looga tagay walaasha banaanka looga tagay eedada banaanka looga tagay aayada banaanka naagtada banaanka ugu tagtay maxaa dhaarinaysaa maamul waa rabnaa dawlad waan jecelnaa intaas iidan dawlad jirin dadkii soo dhaqaayaan kii bukada u gurmaday oo kii baahan u gurmatay oo waxaan baahida iyo dhibka ku shaqeynay waxaan nahay gabdhii gobasha fidiyay waxaan nahay gabdhii martida soo dhaweeyay waxaan nala yiri wixiina waad leedihiin waan idin haynaa maantana waxaan go'aan ah in rag kaligiis la dhaariyo haayo kuma jirno dalka miyaanan ka mid ahayn wiilasha difaacaya miyaanan dhalin gabdhaha waa kuwii idin sabata bixinayay waa kuwii ilmaha idin siday waa kuwii gogasha idin goglayay waa kuwii ciidamada ahaa waa kuwii wax walba suubinayay beeraha gabdhaha lagu qodaa nimankuma qodaan gabadha lagu qodaa digirta qaada cambaha qaada nin kale guriga loogu geeyaa caanaha gabadha qaada wuxuu sheegaynaa in labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ee xuquuqdooda ay ka maqan tahay maantana loo fadhiyo in la dhaariyo baarlamaanka waxaas la dhaarinayo wax ka jira ma aha gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaa iyana haweenkii banaanbaxa sameynaya hadallo u jeedisay banaanbaxan ay gabdhaha Soomaaliyeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ay uga soo horjeedaan baarlamaanka ka dhismaaya labada gobol xulki loo sameeyay oo ay ku dhaliilayaan odayaasha dhaqanka inaysan cadaalad falin xulki la soo xulay xubnaha baarlamaanka oo odayaasha dhaqanku ay soo xuleen inaan xataa ayna joogin 5% inaysan xataa joogin waxa ku nool haweenkii dawladda Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay iyadoo meel ay degto weyday degmada Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Muqdisho Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.